تاكيمت yes ما jirta arintan lagu eedeynayo ah in aad dishay 4 wariyaal waliba 3 wariyaal ah adiga intaad studio u gashay gacantaada ku dishay wariye kale tan mar gaar aad dishay waxaan ma dhahay waxba kama jiraan laakiin waxaan leeyahay kama jawaabayo نفتيدني والعفة ربو لابتيد دافع السلام عليكم ورحمة الله وحان هاي محمد عمر شيخ كان مدها جلو وساردي ورفافينتي iyo hanuunintii dadweynaha ee dawladda militariga hay'adda Soomaaliya waxaan halkan aan shaqada waqtigaasi waxaan galay 1976 waxaan shaqada marna la wada qoray isla maalin la wada qoray wariyihii hore BBC da Hargeysa u jooga Axmed Said Cige ayaa maalinta la wada qoray waxa la igu bilaabay shaqada aan ahaa wakaaladda wararka ee Soona qaybta monitoring la ilaa ayaan ka bilaabay shaqada 77kii waxa la ii bedelay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Garbaharey oo aan muddo 2 sano iyo badh joogay 80kii waxaan tagay waxbarashaan ka helay dalka Jarmalka dawladda Soomaaliya halkaas oo aan muddo sanada ku soo qaatay dabadeed 80kii ayaan 82kii dalka dib ugu soo laabtay waxaan markaa noqday madaxa wararka dibadda ee wakaaladda wararka Soomaaliyeed oo markaa agaasimo ka ahaa nin la oran jiray ama la yiraahdo ma garan karo meel ku dambeeyay Saciid Maxamuud Xaaji oo loo yaqaan Saciid Soona wuxuu ka soo jeeday magaalada Gaalkacyo beesha Sacad buu ahaa waxa kale ku xigeen ahaa Yunus Ali Nuur oo wariyaashii ugu caansanaa BBC da ahaa Allah u naxariistay bari dhaweyd sanadkii hore dhintay waxa wasaaradda markaasi qaybtaasi ayaan ka shaqeynay Galbahaari markaa 82kii aan wararka qaybta wararka dibadda aan noqday 84kii dalka hadana dib uga baxay anigoo tagay wadamada dibadda ama Carabta dib ugu laabtay halkaas oo tagay wadanka Ciraaq ayaa joogay muddo sanad 88kii ayaa ku soo noqday dalka hadana isagoo dalku aad u qasan markaa oo xaaladiisu xun tahay dagaal sokeeyay ka bilaabmeen waxaan ku biiray markaasi halkii mar labaad ayaa wasaaradda warfaafinta galay waxaan noqday wasiir waxaan ka mid noqday shaqaale wasaaradda warfaafinta shaqaalihii waaxda idaacadda oo markaa agaasimo ka ahaa nin la oran jiray Allah u naxariistay Maxamed Aadan Xirsi Teera uu ka ahaa jiray agaasimo ka ahaa waxaan ahaa faal qore iyo barnaamij ku saabsan dhinaca warshadaha ama horumarinta ayaan xitaa sii deyn jiray oo idaacadda ka siin jiray ilaa laga gaarayay 91 waxaan doonayaa halkan inaad idinka cadeeyo wixii aan ka ogaa nin bariyahan dambe baraha bulshada lagu hadalhayo oo la yiraahdo Taakeeye ama Sufyaan ama magac kale magacyada Farxaasle iyo noocaas oo kale aan ku arko markii ay ciidamada US soo galeen Muqdisho waxa qolo waliba ay qabsatay hay'ad ama wasaarad qaar ba qabsaday wasaaradda warfaafinta u badnaa goladan gobolada dhexe ka yimi ama beesha habalgidir u badnaa wasaaradda isgaarsiinta qaar ba qabsaday baarlamaanka waxa qabsaday qolo kale sidaas ayaa markii aan meesha joognay saan u joognay meeshina lagu dul qabsaday ciidankii dawladana uga baxay siyaad barana wadanka markii uu ka baxay dabadeed waxa halka ka dhacay waxyaabo aad u fara badan oo ku saabsan ninkaasi ninkan waxa uu ka mid ahaa Taakeeye la yiraahdo ciidamo nin dhalinyaro aad u daayar buu ahaa wuxuu ka tirsanaa ciidanka ID ama USC da waxaanu had iyo jeer wuxuu ahaa nin aad uga duwan askarta kale waayo ciidamadii dawladda siyaad bareeyay dibadda kamay soo wareegi jirin may soo gali jirin stuudiyaasha may soo gali jirin ninkan qoriga intuu qaato iyo stuudiyaha la soo galay markaa adoo warkii akhriya ayuu kula soo fadhiisanaya kii qorisita Taakeeye marka waxaan ka shakiyay hadaan iraahdo USC SNA iyo USC bay kala ahaayeen hadaan khaldamo oo aan iraahdo USC oo siyaad barra ama USC oo General ID aan kala garan waayo markaas loo kay khaldamo bilo kugu dhifay darteed baan horta halka uga shakisanaa Taakeeye waxa uu markii dambe sameeyay askartii kale ee meesha la joogtay intuu iska baxay ayuu wariyaashii iska raacay soo qorisita
taw kaga duwan horta askarta taas ay ahayd waxa wasaaradda warfaafinta markaa ila joogo reer Boorama ah oday loo oran jiray Allah u naxariistay Xasan Aya Boqorre oo adeerkay ahaa oo wararka General Aidiid ama USCda u turjumi jiray Ingiriisiga soo saari jiray bulletin loo oran jiray Soora ay lahayd oo wararka Ingiriisiga lagu qoro Xasan Aya Boqorre loo oran jiray waxa kale oo ila joogay nin Allah u naxariistay Barkhad Cawaal la ilaa isaguna reer Boorama ahaa oo markii dambe dhowriyad 2010 meelaha ku dhintay weerar lagu qaaday mid kamid ah idaacadihii Muqdisho FM ta ahaa lagu qaaday marka sheekada ninkan waxaan ku soo urdu wajiga ahaan waan garanayay waxa uu wariyaashan meesha lagu laayay dhamaantoodna nin kaliya mooyaan Abuukar Leeyda mooyaan oo wada aqaan haday tahay seedanteena ninka Leeyda ka hadlayay isla arrinkan waan dhamaantood waa Abuukar kaas baan aad si garanayn maalmaha bishii markii ciidankii USCda meesha ay soo galeen ninkan oo meesha wasiirkii la keenay gacmo dheere ee warfaafinta uu horeeyay dawladda USCda ninkan uu yimid muddo aan la shaqeynay dhaqdhaqaaqiisii aan arkay wuxuu maalin weydiiyay qolada hoos buu weydiiyay waxaan ku yiri saaq baana waa nin walba weydiinay sababta saaq weeyna waxa ay ahayd waxa jiray dareen ama ay ka tirsanayeen beelaha USCdu in urur la magac mucaarad ahaa oo loo oran jiray SDA oo hogaamin jiray loo naxariistay Jaamac Rabiila Good idaacadda BBC-du ay sheegtay inay dagaal ay ugu heelinayaan beelaha daarood ama dawladda siyaad barre ugu heelinayaan ay Gadabuursigu la galeen oo ay u heelinayeen sida darteeda USCda ay dagaal la galeen oo USCda ka hor yimaadeen dagaalna Jowhar iyo Beledweyne dhexdeeda ay kula galeen gudub bay noqotay taasi dad badan oo samaroon oo ka soo safrayay Muqdisho Jowhar ila Beledweyne aad loogu dhibay arrinkaasi gudubna ay u qaateen si xun loogu bahdilay ama loogu qaarna ay ku dhinteen sidaas ay u kaliftay marka wiiga tagay ninkaas wiiga tagay taakaya leeyra haddana magaal meeshana ma joogin wax isaaq leeyra oo wariyaasha meesha joogay ku xidhnaa waxay ahaayeen kuwa inta badan u dhashay koonfurta marka laga reebo aniga odaygaas ku hadhnay odayga waxaan ku yiri arrinkii wuxuu yahay maxaan yeelan iska tagna meesha Xasan Ayo adeero inaga meesha waxyaalo badan bad soo kordhay inaga mari wuxuu dhaano halkaan ku dhimanayay Boorama ma tagay sidii ayaa dhowr 2010 ayuu ku dhintay magaalada Muqdisho ama 2008 waxayd mooyaan halkaas oo ciidamada USC iyo dawladda USC waqtiga jirtay ay u sameeyaan aas qaran waana odayga kaliyaatee xabaashiisu ay ku taala ilaa imika wasaaradda warfaafinta dhexdeeda laga arki karo reer Boorama haddii markaan dib u raacno ninkani dhaqdhaqaaqiisa markaan eegay hawshiisu sida wax socdaan markaan eegay waxaan qoriga maba dhigo wariyaashu daba soconaya midba meel buu la galayaa midba meel buu stuudiyo kula galayaa si adoo warkii akhriya markaasaan gartay in meeshan ninkan wax kale meesha ay ka soo socdaan sidii ayaan maalinta qoladeeda ay weydiiyay ayaan shiki badan ay galay sidii baan 2019 bishii labaad dhamaadkeedii bisha saddexaadna ay bilaabanaysay isla 2019 ayaa kaga soo tagay sidaas ku tagay kaga imi oo u galay dalka Kenya aan u baxay marka dadkan uu laayay waxa ka horeeyay nin isaguna dhintay oo loo oran jiray MMJ oo inuu majeerteen ama dhul bahanta mid buu ahaa wuxuu ninkaas qaabilsanaa kaydka idaacadda ayuu qaabilsanaa MMJ baa loo oranayay uu ka horeeyay shanta wariye meesha ku dhimatay uu ka horeeyay ninkii ugu horeeyay lagu dilo ahaa meesha isagoo idaacadda ka soo baxay intaanu meesha ceelgaabta leeyda intaanu gaarin ninkii garanaya xabar iyo wasaaradda warfaafinta iyo ceelgaabta inta isku jiraan oo la garanaya ayuu halka ku dhintay oo halkaas lagu dilay marka inta badan ninkaas wax meesha ku dhintay ninkaas horeeyay inta kale way ku xigeen sida ayaan kan uga shaqeeyay inuu nin dila ahaa oo nin gabalin ahaa oo nin qori sitay qori uu la wareegayo oo ahaa oo aadna u daayiraad dadkan yaraanta qoriga ku qaatay oo ahaa dawladda USC maamulkii USC da ahaa marka ninkaas nin wax dili karo ahaa cabsiba iga gashay sida ayaanan u aaminsanahay inuu ninkaas intaas wariyo dili karo
sidaasan ku aaminsanahay anigu